shacabkayga ku galshay kurbo lagu fahan in aad ku wareertay qurbo waa adigan isku xaaray durbo dhabarka hadduu ku xanuunayo cab xulbo waa ballan in aad gasho kurbo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barta youtube-ka aan ku leeyahay burhan janaal haddii ay kuu tahay markii kuugu horreysay oo aad youtube-keenna imaato fadlan waxaan kaa codsanayaa in aad nagu soo biirto muuqaalkana aad like saarto barteena youtube-ka aan ku leenahayna waxaad kala socon kartaa maalin walba wararkii ugu dambeeyey ama dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhaca dhulkeena Soomaaliya ma ahanna wararka siyaasadda ee waa wararka arrimaha bulshada wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa sheegaya in Adnan Model oo isna ka badbaaday shirqool loo dhigay kaasi oo la rabay in isna lagu garaaco sida loo garaacay Shakubaba Adnan Model ayaa ku sugan dalka Kenya kaasi oo kamid ah YouTuberada ugu waaweyn ee ku nool dalka Kenya oo deegaan ahaan ka soo jeeda deegaanada Puntland sida uu hore u sheegay Shakubaba ayaa ah in la ugaarsanayo dhalinyarada ka soo jeeda qabiilka Majeerteen waxaa dhacday inay dhahaan yar liirada Adnan Model iyo inta Majeerteen abadan waxaa balan waa in meel saaro oo magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yiraahdeen adigoo la Majeerteen ahayn waxaad Majeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaad tahay daba dhilif Majeerteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena dhalinyarada YouTuberiska ah ee ku nool dalka Kenya ilaa iyo hadda meesal ka hadal laakiin waxa laga yaabaa Adnan Model inuu saacadaha soo socdo uu ka hadlo wixii ka dhacay dalka Kenya waxaa labadii maalin ee la soo dhaafay dagaal culus uu ka socday baraha bulshada kaasi oo u dhaxeeyay dhalinyaro ka soo kala jeeda ogaadeen iyo Majeerteen waa nasiib darro in xilligan dhalinyarada ay isku haysato qabiil oo la og yahay meesha uu na dhigay dagaalkan ayaa ka bilowday kadib markii uu Sharma Boy sheegay in biskoolad madaxa uu ka saaray deeq darajo nik lagu magacaabo Axmed Rashiid kaasi oo dadka Kenya ku nool ee aad uga baqaan Axmed Rashiid ayaa ugaarsan jiray dhalinyarada burcadda ah ee lagu magacaabo Super Powerka Axmed Rashiid ayaa sanadkii la soo dhaafay waxa uu socday dacwad kaasi oo loo haystay dad oo si kama ah u dilay bishii la soo dhaafay ayay ahayd markii dib loo soo celiyay waxaana sababay gabdhihii lagu afduubtay kaasi oo siiyay jaanis kale inuu ku dhex ugaarsado magaalada burcadda Soomaalida ah iyo kuwa Kenyaanka ah sida aad wada ogtihiin dalka Kenya waxa lagu afduubtay gabdho Soomaaliyeed kuwaasi oo sababo kala duwan lagu afduubtay magaalada Nairobi Xafso oo kamid ah dadka la afduubtay ayaa hadda ku jirta isbitaal aabaheed ayaa sheegay in gabadhiisana ay shirqooshay gabar kale oo ay saaxiibo yihiin gabadhu waxay shirqoolay gabar saaxiibteeda oo awal wahay oo si saaxiib u hayaan ay qudaar yar isku darsadeen qudaartan ay iyada ku shaqaynaysay iyadana si beesi ugu dhiibaysay oo macnaha noo shaqeeya u lahayd beesi badan lagu lahaaday beesi badan markii loo aaday gabartii markii beesidii aawi tiri ya marka beesidii inay dhamaysatay inay kalma ogiye marka inay dhamaysatay inay ka dhamaysatay ogiga marka beesidii ya arka ugu herantay ya marka sababta darteeda marka waxa weeyaan waxay ugu yeertay odoomay ugu yeertay garab goortahay oo 12 saac ya meesha dukaankeeda iyagoo xirinaysa u imaaday markaas meel kiyoole la dhaha oo gurigi aan hadaa idin sheegayo oo meesha qolkii midooba ya meesha gabartii markaas ya lagu xiray markii idina waxay u maleysay gabartii la jirtay in macnaha ayadana gooni loo xiriyay u maleysay marka gabartaasa gabarta naga shirqaashay welina waxaan ku guda jirnaa isla wararka naga soo gaaraya magaalada Kenya alfanaan Sharmaake Cabdirasaaq oo ku magac dheer Sharma Boy ayaa la filayaa in uu show aan hore loogu arag ku qabsan doono dalka Kenya gaar ahaan caasimadiisa Nairobi showgaas ayaa waxaa qaban qaabiyay sida ay xaqiijiyeen ilo ku dhow fanaanka lagu magacaabo Ilka Ciise Qays kaasi oo dhawaan ku aqal galay dalka Mareykanka wuxuuna guursaday Nimca Joker showgaas ayaa sida la filayo waxa uu dhici doonaa 8 bisha soo socota ee Agoosto laakiin arinta aad loola yaabay ayaa ah in showgaas amnigiisa uu ka shaqeyn doono Axmed Rashiid oo ku eedeysan inuu ku lug lahaa jirdilka loo geystay jilaaga Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Shakubaba dad badan ayaa ku dhaliilay Sharma Boy inuu la heshiiyay ninkii dartiis u garaacay Shakubaba taasi oo Sharma Boy iyo taageerayaashiisaba ka dhex abuuri karta dagaal hor leh
fanaaniinta lagu arkay boorka hordhaca ee showgaas uu dhiganayo Sharma Boy ayaa waxaa ka mid ahaa Ilka Casaqays, Suldaan Seeraar, Xariir Axmed, Maslax Mideeye iyo weliba fanaaniin kale oo ku sugan dalka Kenya. dhinaca kale Sharma Boy ayaa isna bartiisa YouTube-ka qaybta community-ga soo saaray qoraal kooban oo uu ku sheegayay showgaas iyo cidda wadata. qoraalka ayaa waxa uu ku bilowday erayo aan anigu markaas u arkayay karbaash ku socda dadka qaar. shacabkayga ku galshay kurbo, lagu fahan in aad ku wareertay qurbo, waa adigan isku xaaray durbo, dhabarka hadduu ku xanuunaya cab xulbo, waa ballan in aad gasho kurbo. intaasi waxa ay u ahayd qoraalka erayo u ah hordhac hadalkiisa. asxaabe hal la ogaado wax show ah oo aan ka qayb qaadanayno ma jirto. aniga iyo mataankayga Maslax Mideeye ambanul ku casuumay ee Nairobi ka dhici doono. waxaa la rabaa in xaqiiqda la daboolo. cid aan iskala hadalnay arrinka ma jirto amba nala soo wadaagtay, iyagoo og xaaladda taagan iyo sida darteen loogu gumaadayo dhalinyarada Kenya. waana la damqaday dhibka loo geystay walaalkeen Sheekhu Baba, iyadoo dhibka jirana lagama yaabo in aan xalfad iyo wax la mid ah aan dhigno, taasi oo nool ku shirqoolayo. hadalkaas qoraalka ah ee kooban ayaa Sharma Boy waxa uu bartiisa YouTube-ka soo dhigay 12 saac ka hor. laakiin waxaa jira wada hadal u socda fanaanka Sharma Boy iyo Ilka Casaqays, taasi oo ah in uu Sharma Boy u yimaado Nairobi showna ku qabto. Sharma Boy ayaa warkiisana kusoo gabagabeeyay iyadoo aan dhibka loo geystay Sheekhu Baba aan meel la saarin in uusan wax show ah uga qaybgeli doonin. daawadayaal, intaasi waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena wararka arrimaha bulshada oo aad maalin walba ka daawan kartaan barta YouTube-ka aan ku leenahay Burhaan Channel. daawada haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo aad soo boqotay channelkeena, waxaan kaa codsanayaa in aad nagu soo biirto muuqaalkana aad like saarto. mahadsanid.